wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda qorshaynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdikariin Axmed Mooge oo maanta wareysi gaar ah siiyay shabakadda wararka ee Tog Harar ayaa waxa uu ka hadlay abaaraha baahsan ee ka jira Soomaaliland. anigu ndurahayn culimada iyo guddiga abaaraha ee loo magacaabay hawsha inay maamulaan oo aan u yaqiinsanahay inay yihiin rag waaweyn culimadii dalka dad ammaano hayn kara waan durayn inay ammaanadii loo dhiibay dayaceen waxaan isleeyahay hawshu way ka baaxad weyn tahay ammaano waxay u baahan tahay qorshe dhammaystiran oo sugaya tirada dadka Soomaaliland ka mid ah abaartu ay taabatay iyo halka ay ku nool yihiin waayo marka tirada sugto ee dadka ugu badan ee abaarta taabatay halka ku nool yihiin aad sugto ayada caawimada u baahan yihiin gaarsiin karta haddii laakiin arrintu ay naga noqoto un abaar baa jirta qaaraan hal la ururiyo qaaraankii la ururiyo kolba lala carro sidii dabdamiskoo kale iyar meel la geeyo oo biyaha iyo raashin meel la geeyo arrintaasi arrin wax ka tarayso oo dhibaatadii jirta wax ka qabanaysa ma anigu marka horeba suluugsanaa xilligaan ay abaartu jirin iyo abaarta kale la saadaalnay dhexdooda in shaqo wanaagsan qabta ahaydoo ceelal la qodo oo riigo la qodo oo calaf iyo cunto la kaydiyo haddana imika oo aynu xilliga abaarta ku jirno waxaan siran leeyahay malaa hawshu qorshe la'aanna waa yara jirtaa qorshe dhammaystiran oo lagula tacaalayo abaarta hoggaankiina malaa markii guddigan abaaraha la sameeyey qoladan unbaa mas-uuliyadda lagaga baxsaday iyagana way ku baahan marka arrimahan oo kala dhacaanna dowladday tahay inay hoggaanka qabato oo qorshaha hoggaamiso oo abaarta sida wax looga qabanayo iyo waxa la qabanayo iyo waxa wax lagu qabanayaa sida ku imanayaan dawladdu waa inay hormuudka tahay geesta kale wasiir ku-xigeenka hore wasaaradda qorshaynta mudane Cabdikariin Axmed Mooge waxa uu ka hadlay sixir barri ka jira Soomaaliland iyo tallaabadii ay xukuumaddu ka qaaday wallahi horta sixir barri ku day waddankeena Soomaaliland heerar kala duwan soo maray xilliyo kala duwan uu jiray sideedaba sixir barri day arrimo fara badan ayaa keena dawladdu shaqadeeda weeyeen inay arrimaha cilmi baaris ku samayso dadka aqoonta u leh dhaqaalaha aqoonta u leh lacag soo loo maamulo aqoonta u leh isugu yeedho daraasaad ka samayso dabeetana xog dhammaystiran oo shacabka ay ku qancin karto ay soo bandhigto oo ay taado sicir bararka waxa keenaya oo waxyaalaha aan ka qabanano wax markay dadka shaqaaleeda aqoonta laha adeegsato waxaad sameeyay maalintii dhaweydee in uu dahab iyo saad iyo shilinka Soomaaliland oo la isticmaali waayay in mushkiladba ku soo koobeen saadka iyo dahabku horena uu jireen shilinka Soomaaliland oo la isticmaali waayayna horeba uu jiray shilinka Soomaaliland maanta wuxuu ku hareeyay cid isticmaasho waxa weeye shaqaalaha dawladda u shaqeeya askariga oo isaguna mushaharka ku qaata iyo inta yar baaba shilinkiisa si isticmaasho oo lacagta maanta wax lagu kala iibsadaa Soomaaliland meel kasta waa dollar ka raashinka iibinaya iyo ka adeega iibinaya koobka shaahay ma kacabneeyada kafeega biilkii la inoo keenay wadarkiisu dollar baa ku qoran meel shilin Soomaali uu yahay lacagta la isticmaalo haddaad shaah cabaysiyo haddaad biyo iibsanaysiyo haddaad cunto cunaysaba iyo haddaad dhar iibsanaysiyo haddaad ka iibsanaysaba dukaanka ama meherada gashaa waxay ka rabtaa dollar kuwa xitaa Soomaaliland ku iibiyana isla habeenka intaan gobolku dhicin dollar bay u baahan dollar bisoo ka siibsan ninka cuntada soo dejinaya ee dibadda ka keenaya lacagta adag u baahan bangigu ma haya lacagta u baahan bangigu keentay lag ma haysta bangigu lacagta suuq u baahan yahay ee adag isagu ma haya oo risaaf mu tahay oo keed mu tahay lacagta suuqa ku soo daayay sidoo ma lacagtu shilinka Soomaaliland oo suuq sidoo maamula lacagtu soo daabacdo nooriska cusub soo daabacdo xilliga loo baahan yahay saxda ama soo daabacdo arrimo badan musuqmaasuq si loo dagaalamo lacag la xaday oo adagi miye wadanka ka baxaysa arrimahaas oo dhan baa u baahan in la rogo waxaan isleeyahay waa hambabar iyo markii aanu aragnay dhibtu intay leegtahay in farta lagu fiiqo oo dahab iyo saad iyo shilinkii la isticmaali waayay أنا واحد إسلام هاي أنا سادي إيده بدفاع هاي شيلين بالاستعمال وأنا عرفت زيد وأنا هين
warbaaxadda sixir bararka wax laga qabtaa way ka baaxad weyn tahay in farta lagu fiirsaadiyada. ugu dambeyntii waxaa wasiir ku-xigeenka hore wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cabdikariin Axmed Mooge uu ka hadlay saldhigga military ee dalka Imaaraadka Carabtu ka sameysanayo dalkani Soomaaliland. waxaan isleeyahay berigii dekedan Berbera Dubai oo la siinay waxaan idhi warbalnimadu dekedeena waxa qaataan oo intii leeyahay waan la qabanana hayna la qabtaan hooyadii xanuunsanaysa haddii u baahatay Dubai inay tagto baasaboorkii Soomaaliland ku tagi karaysa jawaabtu ma yaabanato qolotiri waa lagu tagaa waa kuwa danta laga leeyahay oo Dubai baa u baahan ama warqada laga saxaxaya ama heshiisyo kale oo soo socda laga hadlayo laakiin da adiga Maxamed oo aniga iyo hooyadii iyo ayida iyo awooga iyo adeerka dadkii Soomaaliland lahaa ee u baahnaa in Dubai tagaan ama ay ka soo adeegtaan ama ay caafimaad buu tagaan ama ay waxbarasho buu tagaan de ama dalxiis kama loo soo baahnaa kuma soo dalxiisaan baasaboorka Soomaaliland Dubai lagama yaqaan Dubai hadii baasaboorkeena dekedeena inay taxana ma hadda hayskeenka dekedeena hadii baahi u qabto baasaboor inana de baahi bil Dubai u qabnaayo baahideena la hawlto intaas lagu darayaa waxayna la qabanayaan ee wadane ee horumarna ee dekad cusub dadama yar iyo xaqul qalin iyo waxaan inuu xakameeyay shacabku wixii u danuba Soomaaliland dara inan ka yar dhalinyarada Soomaaliland ee wax bartay hadii Dubai suuqa Dubai uu shaqahayo oo in baasaboorka Dubai intuu ku tago fiisa ku helo shaqada ku heli kara kuna jooga kara wadada Dubai caafimaad buu baahdo ku tagi kara oo markuu isku soo qaado ilaahay dabka haduu kuba siiyo ama qalliinkiisa ama dawadiisa uu soo noqdo kii doonayay wax ka soo iibsadaan waa inuu tagaa nimanka reer Dubai baasaboorkeena ma yaqaan arko Soomaaliya haday tahayna ilaa ay horta inaga waxyaalaha inoo mudan adduunka baan ka xidhan adduunka inuu baahan inuu furan waxaan u baahanay sida Itoobiya bay noo aqbashay ninkii nala saaxiib noqonaya inuu noo aqbalo ninkii aan aqbalinayna waa inaan aqbalin iyadoo tii taagan tahay oo heshiiskii hore ay qaateen oo dekedeeni deeqeen ugu wada filadeen ugu qaaliga hayna nimankaas qaateen ayaa haddana imika leeyahay beyskii ciidamada saldhiggii ciidamadii Berbera waa bixinay saldhigani waa saldhig quwadaha adduunku isku haysan jireen midowgii Sovieti iyo wadanka Mareykanka ayaa isku bedeli jiray way halku ku yaalo iyo ilaahay Soomaaliland halkan uu dhigay ee muhiimka ka adduunka aawadeed labada quwadood baa saldhiga isku haysan jiray saldhigii quwadaha adduunku darin jireen nimanka Imaaraatiga ah ee Dubai dekadiiba wali waxba ka gahay ayaa la kiina loo soo daray aniga aragtay diidma ma ka soo horjeed ma laakiin waxaan leeyahay dekedan Berbera iyo saldhigani Soomaaliland hadii u goyn kari waayaan اعتراف iyo wax adduunyada uga baahan tahay ama isu soo dhawaansho dadban oo wadanka Imaaraadka Carabtu uu Soomaaliland ku aqbalayo waxna kula qabanayo horumarna uu sameeyaa at the same time xiriir diblomaasiyadeed nawina la yeelanay hadii labadaasi inuu qaaligii aan inuu goynahayn inaynu Dubai xiriir dhow intaynu yeelano ayna aqbalaan oo nooc aqoonsi kamid ah hadaan ka weyn siin karin ayna siiyaan anu ma arko sabab saldhigana loo siiyo way saldhigo iyaga la siiyo mushkilaad kale ka sanaya dad aan maanta ina soo eegahayn oo dan laga lahayn ayaa ina soo eegay quwado xoogagan imaka nabadgelida adduunka soo jeeda xitaa way imanayaan marka reer Imaaraat loo intay ilaalin karaan wadanka yare ammaanka ah ee iska nabdoon nabad baa lagu wada joogaa nabad ma niibinaa beyska markay naga samaystaan hadii mushkilaad soo raacaan talo intay lag bay ina ilaalin karayaan inuu waa su'aal kale war arinta halba aynu siinabee aynu dawladdu waxa soo bandhigto waxaynu dhaafsanayno saldhigan military ee ugu qaaliga xalaal had cad baa la qashaay alla sheego la yiraahdo beys saldhigan Berbera waxaas ku bedelanayna oo danteedii laakiin duuduubkan iyo baarlamaankan fadhiidka ah ee mushkunaaxa ah ee hoosturinta looga yaro xogaa dadna as ku duugayo iyagoo danihii dadku waxay rabeen aan eegahayn wallahi niyo anigu
taas dadkuna mucaaradada malaa qalad bay ka fahmeen waxaanu ka hadlaynaa waa Soomaaliland jacayl iyo Soomaaliland taasi wanaagsan oo qurux badaato wixii wax yeelayna inaanu ka hadlo weey arin mucaarad shaqo kula ma laakiin madaxweynahayga aan ixtiraamka u hayo iyo xukuumadda waxa looga fadhiyaa waxaynu dhaafsanaa maxay nimanka imaaraatigu haddaan labada shay ay nagu qaaliga naga qaadayaan aqoonsi ama wuxuu dhigmaanay nagu siinahayn xitaa horumar aqoonsiga ka qaalisan oo fahmi karayna oo damaanad qaadaya ammaankeena inaanay nimankaasi markii inoo yimaadaan mushaakilaadka kale ee la yimaada inay gaashaan nooga noqonayaan inay horumar waddankan horumar buu baahan yahay inoo sameeyaan dee horumarku waxa ka bilaabmaya dhalinyaradan towsaniska kumaanka kuna jaamacadaha ka soo baxaya ee suuqa Dubai wala hindibo way ka shaqeysay u shaqo tagi lahayd baasaboor horta kow halka ka bilaabaano ha ogolaadaan in dadkeena u doofino aqoonyahanka imaaraadka oo halka ay ka soo shaqeystaan wixii kale inoo darayaan wada leh aeroboorda leh horumar leh dhaqaalaheena leh miyigeena leh xoolaheena leh abaartan taay waxay nagala qabanayaan lana daan aragna oo aynu maqal anigu inahaasan ayaan isleeyahay oo ku soo koob haysu dhigmaan waxa imaaraadku naga helayaan iyo waxa ay ka helayaan hadii ay isu dhigmayna nimanka sabab loo siiyo meesha aan ka rabnaa maxamed muriq shabakada caalamiga ee Togherer Hargeysa.